garan karnaa cudurkan wuxuu leeyahay ka hortag awooddeeda ma lihin ka daba tag ma lihin oo waddamadii awoodda badnaa ilaahay baa awood leh dhaqaalaha badnaa u diyaarsanaa dhinac walbaba ee hadda la daalo dhacaya oo dhib badan uu ka haysto uu ku soo noqday mar kale oo kulli ay bilaabeen inay xiraan oo ay sameeyaan maxaan ku idhaahdaa lockdown marka annaga oo dee aan ognahay xaaladeenna dhaqaale xaaladeenna caafimaad xaaladeenna bulsho annagoo og runtii waxay nagu tahay inaan qaadno waxaan sahlayn laakiin mar walba allaan u noqonnaa allaan xasuusannaa inuu ilaahay naga badbaadiyo cudurkan iyo aafadan safmaraynka inuu ilaahay naga badbaadiyo ilaahayna waa noo aqbalay alxamdulilah markii hore ilaah waa noo aqbalay haddana waxaan aaminsanahay inuu ilaahay noo aqbalayo laakiin inaan ummaddeen u sheegno mar walbaba waxyaabaha u baahan ka hortagiisa u baahan oo ay tahay afka in la xirto gacmaha mar walba in la dhaqdo inaan laisu dhowaan oo intii la kala fogaan karo la kala fogaado kulamada la yareeyo haddii dad ay dhintaan inaan raadino sida qaabka ugu fiican maxaa yeelay faafintiisu sida la sheegay inay ka daran tahay markuu qofku nool yahay in aan raacno awaamiirta iyo tusaaleynta wasaaradda caafimaadka taxadar kasta oo aan samayn karno inaan galno tan labaad baraarujinta iyo wacyigelinta shacabka oo aan rabno culummada oo ah runtii dad aada loo dhagaysto oo codkooda meel walba gaari karo inay kor u hadlaan ay dadkeenna u sheegaan aafada iyo dhibaatada uu leeyahay cudurkan iyo sida ugu habboon oo looga hortegi karo masaajidyada waa hadde waxa weye goobo cibaado weeye hala xiro ma oran karno dee waa meelihii lagu cibaadaysanayey way goobihii lagu cibaadaysanayey laakiin in la helo qaab loo kala fogaado oo aan laysu qaadsiinin cudurkan safmaraynka ah marka hawshaasna waxaa laga rabaa culummadu inay ugu istaagto sidii hadda ka hore ugu istaagtay waxaan ognahay muddo 3 isbuuc ah inuu aada noo hayo cudurkan testigii ugu dambeeyey oo la sameeyey guud ahaan January wixii ka horreeyey marka la isku daro inay ahayd 14,000 dadka laga helayna ay aada u yaraayeen marka loo fiiriyo hadda 3 ugu dambeeyey testigii la sameeyey weliba noocan inuu yahay nooc khatar ah oo aanan cidna u aabayeelin awal waxaa la lahaa dadka waaweyn keliya iyo dadka pre-existing conditionka qaba inuu u daran yahay laakiin hadda waxaan aragnaa inuusan cidna dhaafeen dhalinyaro iyo waayeelba marka in aan kulligeen yar iyo weyn baan u istaagno sidii aan macluumaadkan isu gaarsiin lahayn ummaddeenana aqoontooda iyo wacyigooda kor ugu qaadi lahayn saan sheegayna hawshaasi annagoo dhan waana wada saaran tahay laakiin waxaan u xilsaaraynaa inay qayb ka ahaadaan culummada rugta ganacsiga iyagu naftigooda waxaa sidii hadda ka hor aan u sameynay ilaa dhowr jeer horaan u kulannay markii sanadkii lasoo dhaafay xaaladdan oo kale aan galnay runtii waxay ka qaateen qayb lixaad leh qayb weyn ay ka qaateen iyagana waxaan rajaynaynaa intii in ka badan oo wakti iyo dhaqaalo ah inay geliyaan maxaa yeelay guryaheenu joogaa fakri iyo taajir midna ma laha marka in aad wax alla wixii karaankiina ah aada gaarsiisaan ganacsatada soomaaliyeed meel kastay joogaan inay qayb ka noqdaan maxaan ku leedahay kambeynkan hawshan dhakhaatiirta waxay la tahay dalku khatar yuu ku jiraa hawlahoodii rootiinka ahaa in aysan ku ekaanin oo ay volunteer gareeyaan maxaa yeelay cisbitaalka keliya hadda aan hayno oo hawshaan aan u asaan garaynay waxa weeye waa martiini oo aan u xil saarno hawshaan
waxaan aaminsanahay inaysan qaadi karin in cisbitaalada kale la furo oo kulli la gaarsiiyo cisbitaalada dalka waxa dhimanaya waa hooyooyinkeen iyo aabbayaasheen iyo carruurteenna weeyeen wixii nool baa daaweyn kartaa ama daaweyn doontaay in laga hortago inaysan dadkeenna aysan ku baabi'in cudurkan aafada oo safmareenka ah oo cisbitaal walbaba uu qaybtiisa qaato kaalintiisa uu qaato ururada bulshada oo qaarkood halka nagala jooga iyaga naftigooda in ay bilaabaan inay dadka gaarsiiyaan kambeynkan ama ololahan ololo dad gaar ay leeyihiin maaha dowladda keliya ma laha annagoo dhan baa iska leh maxaa yeelay wax dowladdu qaadi karto ama awooddeeda keliya ku siman ma aha saan sheegay waddamadii qaniga ahaa oo dhinac walba u dhisnaa oo aan waxba dhibaato arag yaa qaadi la marka annagoo ilaahay kaashanayna annagoo garba haysaysanna oo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladdu iyo ganacsatadu iyo culummadu oo iswata iyo annagoo ilaahay kaashanay unbaa runtii ka badbaadi karna cudurkan oo aan u dhanna annagoo dhan marka waxaan isugu kin yeelay maanta in aan hawshii aan haynay shalay aan laba jibaarno oo aan xoojinno oo qof walba meesha uu joogo uu ka qaato kaalintiisa oo aanan cid gaara aanan lagu hadlayn hawshaan wasiiraddu iyo wasaaradda howlwadeennada wasaaradda runtii waxay qaateen kaalintooda shaqo wanaagsanna waa qabteen laakiin dee waddan soo kabanayaanna oo awooddiisa dhaqaale iyo awooddiisa capacity shaqo ay aad iyo aad u yartahay marka annagoo bogaadinayna u hambalyaynayna shaqaday qabteen laakiin waxaan ognahay inaysan intaan in ka badan aysan qaadi karin oo ay u baahan yihiin in qof walba oo muwaadin ah uu kaalintiisa ka qaato si joogto ah dadka inaan u wacyigelinno miidiyaha aan haysanno aan isticmaalno subax walba dadka aan u sheegno goobaha ay joogaan aan ku gaarno hadday tahay masaajidyada iyo goobaha ganacsiga iyo meel walbaba aan ku gaarno oo aan u sheegno cudurkan inuu yahay cudur dilaa ah oo khatar ah loo baahan yahayna in aan ka hortagno kadabatagiisu inuu yahay nasiib iyo qofka xaaladiisa caafimaad uu ku jiro ay ku xiran tahay inuu ka badbaadiyo tii ilaahay marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in cudurkan uu na dhaafiyo inuu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ama ka baryeennaa aafadan aanan qaadi karin ilaahay inuu naga ilaaliyo idinkana dee waxaa ducadaasi inaad idinkuna qaybtiina ka qaadataan oo ilaahay aan noqonno oo aan ducaysanno inuu ilaahay na dhaafiyo intii dhimatay allah u naxariisto dad aad qaali u ah yaa naga baxay usbuucyadii lasoo dhaafay oo bulshada runtii indhow ahaa waktigoodaa dhammaaday ilaahay ha u naxariisto jannadiisa naxariistiisina ilaahay ha siiyo